waxay aad uga ceebaysan jireen ama ku fadeexadan jireen aad ayaad u dhuuban tahay. Kelmaddaas markii ay ka badatayna waxa uu qaatay go'aan aad u adag kaasoo noloshiisa gebi ahaanba geliyey khatar. Haddaba wiilkan markii dambe dadku aad waxay u jeclaysanayeen bulshada qayb ka mid ah inay sawiraan la galaan, halka qaybtii kale ay ugu wacday The Hawk, ninkii aadka u murqaha badnaa. haddaba wiilkan ayaa maanta taariikhdiisa ama backgroundka sidan waxaa ka dhigay aan inala wadaagi doonaaye ku soo dhawaada haddaba wiilkan waxa uu dhashay dalka Brazil, da'diisu waxay jirtaa 25, magaciisana waxaa la yiraahdaa Romario. haddaba wiilkan marka uu jiray da'da 15 jirka, ardayda galaaskiisa ayaa waxay aad ugu ceebaysan jireen ama aad ugu qosli jireen inuu aad u dhuuban yahay, taas oo aad isna ugu dhalisay carab badan. waxa uu ka guuray magaaladii uu joogay, waxaana uu aaday magaalo kale si uu u soo sameeyo murqo waaweyn ama uu soo dhiso jirkiisa una noqdo qof qurux badan oo qof kastaana ka heli karo. haddaba waxa uu tagay tuuladu joogay tuulo aan ahayn, waxa uu bilaabay birdhis. waxa uu jirkiisa ka soo saaray murqo ku filan, kuwaas laakiin isagoo u cuntami weyday waxa uu isticmaalay injection amba irbadaas oo murqaha marka uu ku mudo ka dhigaysa murqihiisa kuwa aad u waaweyn. irbada uu isticmaalay amba injection uu isticmaalay waxaana lagu magacaabaa Synthol. Syntholka uu isku miday waxay murqihiisa ka dhigaysaa kuwa aad u waaweyn, xajmigii loogu talagalayna ka weyn. run ahaantii markii oo aad loo arkay oo bulshadii soo dhex galay, dadku waxay u kala jabeen qaar ku maadaysay iyo qaar sawiraan la galaa. markii dambe waxaa aad uga baqan jirtay xaaskiisa, sidoo kale waxaa aad uga baqasay dadka tuulada uu jooga la degan, waxaa aad uga baqay family-giisa. waxa uu ku sigtay inuu gamcihiisa waayo. runtii waxaa ka hadlaya khubaro caafimaadka ah ayaa ka hadlaya kiisaskan oo kalaad, waxayna ku tilmaameen kiisaskan inay kala kulmeen dad gamcahoogii ku waayay, sida oo kalena ku dhintayba isticmaalka injectionka ay isticmaalayaan amba irbada ay ku mudaysay murqo waaweyn u helaan. Not approved products. These are products that are not meant to be in the body, and I'm seeing the disasters at an alarming rate over the last several years. I've seen people that have had severe infections where they've lost arms. We've seen deaths from these. Acho você bicho monstro. Isso ali naquele dia. haddaba wiilka waxaa looga digay inuu joojiyo isticmaalka irbadaas Synthol lagu magacaabo. wiilkani waxa uu noloshiisa ku waday inuu soo saarto murqo waaweyn ilaa markii dambe murqihii jirkiisa ku jiray oo dhan aad ay u waaweynaadeen, baaxadii loogu talagalana ay dhaafeen. haddaba wiilkan waxa uu qaatay taladii loo soo jeedinayay ee khubarada caafimaadka iyo dadkii deegaanka ay u soo jeedinayeen ayaa uu qaatay. laakiin waxa dhibaatay ka jirtay wiilka ma haysan wax lacag ah, sidoo kalena muu lahayn wax experience amba aqoon, maadaama uu iskiilka darteed uga tagay fadeexadii amba ceebtii loo geysanay. haddaba wiilkan wuxuu bilaabay business yar kaas oo uu ka noqday tuuladii uu joogay ama magaaladii uu joogay timajara ka noqday. timajarihiisina ugu magac dalay The Hawk Barber Shop, kaas oo timajarihiisu kaliya u dhex yaalay kursiga iyo miiska yar inta uu ku jarayo. haddaba waxaa maqlay nin ganacsada ah, ninkaas oo maqlay sheekadiisa inuu soo hiloobay inuu wiilkan uu dhageysto amba uu wareyso waxaasna ka dhigay. wiilkaas ayaa isku dayay inuu caawimaad badan uu siiyo, kaas oo u soo iibiyay qalab uu meeshiisa ku weynayn karayo amba uu barber shopkiisa timajarihiisa uu ku horumarin karayo si uu uga soo saaro dhaqaalo ku filan. wiilkii waxa uu dib u helay family-giisii, waxa uu dib ugu soo noqday xaaskiisii, waxa uu dib ula helay macmiil badan amba waxa uu dib u kasbaday bulshadii. kaas marka uu joojiyay isticmaalka dawada uu isticmaalayay oo ku soo saarisay murqaha, taasoo imika noloshiisa loo aad uga fiican tahay sidii hore, taasoo tusaysa inuu caafimaadkiisu ka soo reynayo dhanka murqaha inkastay aad u waaweyn yihiin. haddaba fiidooga waxaan kala baxaynaa amba cibro uu noo yahay inaynaan isticmaalin waxyaabaha chemicalska oo dhan, aynu isticmaalno sida waxyaabaha naturalka ee dhulkeena ka soo baxaya. hadday noqon lahayd dawooyinka dumarkeena isku qurxiyaan oo gobka amba waxyaabaha kale ay iska isticmaalaan ee naturalka ah, ayna u dhowaan chemicalska taasoo wajigooga amba gamcahooga aad u saameynaysa. sidoo kale inaynaan isticmaalin dhalinyarta chimeriska waxyaabahan laisku mudmudo amba borderska aadka u khatarta badan, kuwaas jirkaaga amba murqahaaga degdeg u soo saarayo. fiidoogan ayna cibrada kala dhex baxaynaa insha Allah wixii chemicals oo dhan
aad ha looga digtoonaado. waxaan maanta mawduuceena kusoo koobi doonaa inahaas. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.